maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal loo haystay qarax uu ku dhintay Allaha u naxariistay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi taariikhdu markay ahayd 19 bishii Abriil sanadkan 2019 ragga la xukumay ayaa kala ah Cali Axmed Guure Qoyane oo asagoo maqan xukun dil ah lagu riday Nuur Ibraahim Mahad Alle oo isna dil lagu xukumay iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas oo xabsi daayin lagu riday gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa warbaahinta u akhriyay xukunka ay maxkamaddu soo saartay. Bismillah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal. 1. Cali Axmed Guure Cali Qoyane ina Madiino Cali oo maqana ah. 2. Nuur Ibraahim Mahad Alla 42 jir ah ina Faadumo Xaaji Maxamed ku dhashay Hiiraan. 3. Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah ina Ambiyo Sheekh Axmed ku dhashay Maxaas kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyo in ay qarax miino ku dileen marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas dambigaas oo ka dhacay degmada Maxaas 19 bishii Abriil 2019 doodeer kadib maxkamaddu markii ay aragtay qiraalka eedeysane Nuur Ibraahim Mahad Alla oo ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in qarax miino oo ay u soo dhiibeen kooxda Al-Shabaab uu geeyay degmada Maxaas qaraxaas oo uu geliyay kuna qarxay maqaayad uu fariisan jiray marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale wuxuu sheegay eedeysanuhu in ka hor inta uusan qaraxa dhicin ay kulmeen eedeysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo u sheegay in uu khilaaf kala dhaxeeyo marxuumka markay aragtay maxkamaddu qoraalka eedeysane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in ay kulmeen eedeysanaha labaad Nuur Ibraahim Mahad Alle inta uusan qaraxa dhixin ka hor iyo in ay jirto in uu la xiriiray markii la xiray kadib lacagna u tuuray sidoo kale eedeysanuhu wuxuu sheegay in uu la soo xiriiri jiray eedeysanaha koowaad Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan Al-Shabaab kana wada hadli jireen arrimaha deegaanka markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in markii uu dhacay qaraxii uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenka kadib ay soo xireen eedeysane Nuur Ibraahim Mahad Alla markii ay wareysteenna oo u sheegay in uu isagu keenay qaraxa degmada Maxaas isla markaana uu isagu ku aasay goobta uu fariisan jiray marxuumka sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedeysanuhu u sheegay in qaraxa uu u soo dhiibay Cali Axmed Guure oo ka tirsan Al-Shabaab markii uu imaaday degmada Maxaasna uu ku soo xiray eedeysanaha saddexaad Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo markii ay kulmeen u sheegay in qaraxa loo dhigayo marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi sidoo kale maragu waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisu uu ka dhaxeeyay khilaaf la xiriiray maamulka markay aragtay maxkamaddu dambe muujinta ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad 2 sawirka marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas oo geeriyooday 19 bishii Abriil 2019 3 codad cadeynaya xiriirka eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in saddexda eedeysana ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah 2 dambiile Nuur Ibraahim Mahad Alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi 3 dambiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq Axmed Cumar Maxamed warbaahinta xogsan